anigo adiga hadalku oran kara oo hore ku iri oo hadda 2 milyan oo kelmadood oo dame ku oran kara oo isaga ka filan sabab aan intaan adiga ku dhaafo gabadhii aa kala tagteen aan u gaaraa meesha ma taalo mid soo wado aan u sugaa meesha ma taalo mid hadda kula sawirnaydna aan u faaleeyaa meesha ma taalo xasha wujud ninkan dalka Jarmalka computerka inay ugu jirto gabadha xalaasha oo ku qabo iyo carruurta xalaasha oo ku dhalay in uu computerka dalka Jarmalka uu gelin waayay marriage certificate uu geliyay ilmahaas inuu ku dhalay saaxiibtinimo guri dhisan iyo guri dumay guri 7 sano dhisnaa iyo guri 2 bilood ku dumay labada kan ka hadal leh oo faaleyn leh oo su'aal leh oo wadwadin leh ku yahay waa la garanayaa laakiin xaasha wujud anigu adigana ku soo weydiin maayo doondoonina maayo dadkana u sheegi maayo oo la soo hor fariisan maayo ninka iyo xaaskiisii maxay ku kala tageen saatan ku kala tageen maxaa guriga uga dumay ma isaga saatan yeelay muxuu saa u sameeyay waxa hadda islahayd shiina dhiiqada gali anigu ku dhici maayo oo gali maayo waxaan ku iri warneeyo aniga waxaan leeyahay lawyer inoo dhaxeeya aniga iyo dawladda qolada la yiraahdo finance amt oo canshuuraha qaabilsan waxaan maqli jiray in dhibaato igu filan faraqa ku haysta lawyer nin qabsaday hadda aragto waa nin doonaya in dawladda looladooda oo laga difaaco oo bad ku jira way lawyer bad qof ku jira qabsada laakiin finance amtiga iyo adiga hay'adda cashuuraha iyo adiga cidda inay dhaxaynaysa waxa weeye ishtoya prata ama tax consultancy macna la taliye dhinaca cashuuraha ninkaas inay dhaxaya marka walaalkeen inuu bad ku jiro afkiisu ku qirtayo taasa cadeynaysa dadka taageerayaashayda waxaan u sheegayaa ninkaasi nin aynu la sii tirsan karno ma aha farq weyn inoo dhaxaya tusaale waxa idinku filan aniga 24 saac tusbax halka ay suran isagana silsba u suran marka ninka noocaasa mana ku xigmad guureyno mana la tirsanayno hadda ka hor gabar golojoog leh oo guri buuxa ka soo toosta oo markay halka marayso laga indha buuxsado baa waxay wadan jirtay oo madal kasta iyo meher kasta ay geyn jirtay oo u wadan jirtay gabar ay saaxiib yihiin oo hagagasa oo guri dayacan ka soo kacda oo xaaladeedu allo sahal yahay oo aan hadal aqoon xataa oo iyada xataa dhinaceeda fariisane gadaasheeda dame halka ka soo qoraansta ayaantii dameta waxa lagu yiri gabaray maxaa gabadha tan ugu tacadiyaysa oo maalin kasta u soo kaxaysta ma iska dayso gurigeeda ha joogtay maba loogu talagelin meelaha inay timaadday waxa tiri oo ku jawaabtay iga harbaan ka waay ninka odayga oo maalmihii u dameysay in soo falaashayay inaguna markasta aynu u ceynay waxa la socotaan arintiisa inaan shalay soo afbeeray ninka inaan la soo hadlo oo u soo jawaabo ma jeclayn laakiin war iga harbaan ka waay waa ku kalifaya hadda wixii ka dameeya wada hadal bahaadkaas ka haray walaalkeen nabaradii halka kaga dhacay dubaaqooyinkii haday ugu dawoobayaan oo uu caafimaad iyo dan mooday inuu shiino cule ka soo hadlo oo maalintii 2 video ka soo sameeyo waxaan leenahay ruqsaan ku siinay fasax baan u tahay waa soo hadli kareysaa maalin walba waa soo fariisanaysaa shiine dib dame kugu soo jawaabi maayo ilaa uu ka maarmi waayo mararka qaar waxa jira hadda galabto kale arina ka maarmi waayo baa jirta mararka qaar kood waxaana ka maarmayn oo lagu kalifiyaa jirta laakiin ruqsa haysata waa soo hadli kareysaa ilaahayna waxaan kaaga baryayaa oo ku weydiinayaa inuu inta caafimaad kaaga dhigo horena adaa guriga kale soo gardarsaystay oo soo doontay oo adaa afkaaga marxaanti maxaa kula isugu filan oo adaa arinta soo bilaabay shiinana mar allaale iyo markaa soo falaashto buu ku soo wacayay marna isagu wicitaanka kaaga ma soo horeynay waxaan rabaa dhowr yar oo arimood inaan halka ka taabto oo ay ka horeyso ugu horeyso xaaskayga iyo ciyaalkayga galabta u giftay oo ay ku xigto arintii cashuurta oo ay ku xigto arinta qabiilka oo aad tiri shiina waa cunsureeyay xasha wujud nin inuu qabiil Soomaaliyeed cunsureeyo lagu yaqaano mihi horena uguma cunsureedayn haddana cunsureedayn maayo iimana damayn doonto ilaahay wuxuu yiri
qabiilada iyo shucuubta waxaan idinka dhigay litacaarafu inaa isku garataan waxa idinku karaamo badan ilaahay xaggiisa qofka ugu alle ka cabsiga badan marka dad diin laanahay dad dhaqan laanahay anigu arinta xasha wujuud adaa jecel ina maaragtay dadka ku beerdhaxawsato hadaa leedahay shiina muxuu yiri batuumba abtiga war khayraba adeerka weeyaan ku ireemay taas ku dhibto dad kale shiinow inaad ninka tiraahdo batuumba abtiga ama ahayn oo waxay ahayd batuun inaan qariso batuun nin la qarin karana maaha nin qarsoomi karana maaha waan inay tahay in lagu faano hadaan iri aniga ninkaasa abtiga cunsuriyad maaha waxa cunsuriyad wada oo ay wada kale hala qariyo waa qabiil Soomaaliyeed ma qarsoomi karaan dadka la sheegayo oo la wadwado ka mid yihiin kaliya waa ka sharaf badan yihiin oo waxay uga sharaf badan yihiin waa dadka inta badan adinkooda iyo afkooda laga amaan ka helo halka qabiilada kale Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ay iska hawl badan yihiin waliba qabiil dhan hawl intay u shiraan isku soo raacaan shakhsiyaad iska dhib badan iska leeyihiin marka anigu reerka ma cunsuradayn karo horena waa u sheegay waa reer sharaf badan qabiilka ay ugu haysataan isaga ila aado wuxuu yiri qabyaalad baa ku biyo dhigtay si aan taa ugu cadeeyo baa waxa ku yiri warinaanan qabiili ahay waxa ku cadeynaysa adeerkay waxaan ka raacay adeerka khayran ka raacay sidoo kale reerkaygi tolkayna qaditaankay qadeen waxaan ku ilaaway reer abtiga inay xildhibaan heleen oo soo baxeen anu xataa qabiil ma magac dhabin xataa nin kale shiinow inaad tiraahdo ninka batuumba abtiga waa ku cunsuradaysay ninkaasi isaga cusuri sababtoo qofka hadii la dhaho kana waa adeerka kana waa abtiga li tacaarafu waa sidii diintu tiri weey hadaan walaalkay anu qabiil ku haysto adreesku hadda in siiyay iyo aftirsiyihiisi ba xataa hadal ka yimi anigu marka waxa inaan galo ma rabo horena uma gelin gadaalna u gelmaayo wuxuu sheegtay ba anu ku xukumeeyaa ku qiimeynaya adduunkana waxa laangaab ku qofka dayacan oo aan dantiisa aqoon aakhirana waxa laangaab noqonaya qofka jannada laga waayo marka xasha wujuud min qabiil lagu yaqaano miihi diiqadana iga daayay idinkuna dadka cunsureedeynina marka tiraadaan batuum inuu xuso ma ahayn batuum ba cunsureedeynaysa halka aakhira idinka hadleen khayre iyo batuun waa laba nin oo isu dhigma la soo wada qaadi karo isku sina looga hadli karo looguna cabtirsan karo taa intaas aan idinka leeyahay ninka la leeyahay oday waxa tiri shiina culay maartay gurigeyga iyo caruurtayda iyo baa ka hadashay xasha wujuud horta dadka Soomaaliyeed waxay sharaf iyo qiimo igu hayaan inaanan anigu sidaan u hadal badanahay oo u soo muuqaalo duubid badanahay oo u soo sawiro qaalitaan badan oo xataa labadeeda lugood arkay inaanan halakan keenin qoyskayga oo dad badan laga yaabo xataa inuu shaki kaga jiro shiine inuu xaas leeyahay inuu ciyaal leeyahay iyo inuu nin single meel taagan yahay marka alxamdulillah rabbil caalamiin reerkayga anu social media ma keeno horeyna uma keenin dibna u keeni maayo dadkana waa uga digaa oo waxaan dhahaa wax fiican maaha nolosha bareefadka iyo tan public ha idin kala soconaato oday aniga familygayga waa soo aflagaada u geysay xaaskayga aflagaadisay ciyaalkayga aflagaadisay aniga isu aflagaadisay oo aniga taydu dad wax islaabeeno ahayne waxba shida badan ba iyadoo male laakiin ciyaalkii iyo xaaskii iyo ba ii dhaaftay waxa ku sheegayaa anigu guri dhisan oo buuxa baan joogaa 7 sano baan xaaskayga isqabnaa ciyaal bay haysaa afara alxamdulillah rabbil caalamiin guriga waa dhisan yahay waana dhaqan yahay guri dhisan iyo guri aan dhisnayn waxa faaladiisu ay badan tahay guri aan dhisnayn adu maalin dhowtaa guursatay 2 bilood baa gabadhii isqabteen waa kala tagteen furiinkana ilaahay baa maxaa ku yiraahdaa jideeyay in la isku soo la ismehersadana ilaahay baa jideeyay laakiin guri dhisan iyo guri dumay guri 7 sano dhisnaa iyo guri 2 bilood ku dumay labada kan ka hadal leh oo faaleyn leh oo su'aal leh oo wadwadin leh ku yahay waa la garanayaa laakiin xaasha wujuud anigu
adigana ku soo weydiin maayo doondoonina maayo dadkana u sheegi maayo oo la soo hor fariisan maayo ninka iyo xaaskiisii maxay ku kala tageen saatan ku kala tageen maxaa guriga uga dumay ma isaga saatan yeelay muxuu saa u sameeyay waxa hadda islahayd shiina dhiiqada gali anigu ku dhici maayo oo gali maayo nin Soomaaliyeed baa tahay waxaan u arkaa nin calafkiisu uu maxaa ku rahdaayay inta ilaahay ku simay ina ahayd oo maxaa ku rahdaayay sida xaaladdu ay kaaga istaagtay wax inta dheer oo aanu galayo ma jirto adigana halkaas ceel bay kaaga dhacday waxa weeye anigo adiga hadalku oran karo oo hore ku iri oo hadda 2 milyan oo kelmadood oo dambe ku oran kara oo isaga ka filan sabab aan intaan adiga ku dhaafo gabadhii aa kala tagteen aan u gaaraa meesha ma taalo mid soo wado aan u sugaa meesha ma taalo mid hadda kula sawirnaydna aan u faaleeyaa meesha ma taalo xasha wujud adiga hadii garashadaadu ay taa ku siisay oo galabta ku kacday waa ku socon kartaa keep going ba ku leeyahay keep going waa ku socon kartaa sababtoo qof walba wixii uu isagu yahay buu iscadeeyaa anu adaan kula hadlayay adaan halka kala hadlayay cid kale meesha ma soo dhigin haddana ma soo gelin karo tan sheegto tiri xagga qabiil buu ila aadayna adaa qabiilada ugu tilmaamay tusaale yar ku soo qabtay abtiga ay adeerka baan haday labadu ay ku gubayaan waxay ahayd inay isku si ku gubaan khayr iyo batuun hadaas isku si maxaa ku raartay ina wax hadashana waxay ahayd inay isku si ku damqaan oo ku taabtaan ma ahayn ina mid uu saa uga jarayso uga gubato ma ahayn marka waxa ku leeyahay niyahow aniga hadda istiri shiine dhiiqada dhexdhig wallahi marka yeelayo mana idhigayso dadka Soomaaliyeedna waa og yihiin guri 7 sano dhisnaa oo wali dhisan oo dhaqan oo buuxa oo ciyaal joogan iyo guri shalay la dhisay oo 2 bilood ku dumay labada kan daldaloolooyin leh kan la faaleyn karo kan han iyo xashashaq laga dooni karo maxay isu fureen maxay ku kala tageen muxuu saa u sameeyay waa garan kartaan ku yahay laakiin aniga walaalkay haduu gurigayga ii soo dhaafay anu kiisa u dhaafi maayo xasha wujud intuu ka yiri galabtana afis iyo saamax bay ka tahay xaqayga xasha wujud waxa rabaa oo kale inaan kelmad ka iraahdo arinta qaadka ayaan dhawaytana waa ka dhawaajisay maantana waa ku soo celisay waxa tiri shiine jarmalka qaad ku gadaa waliba cadeymo codad baan ka hayaa dadka Soomaaliyeed waxa rabaa inaan u sheego shiina culay ma aha nin balwad leh ilkihiisa u jeedaan war shiina sigaar af masaaro waaba waxa taaban jiray shiishada waliba markasta ma xafijirine markii dad halaagan helaan oo dhahan warkaan halka maqaaxida tanaashidanaa baa taaban jiray tiina 3 sano ka hor baa iska daayay waxa isaga daayay oo idin sheegayaa anoo aan 6 bilood cabin baan qolo u tagay waa imarti sooreen ka bacdi shiisha ila aadeen haday fariisiyeen oo shiishada la soo dhigayna bahal afeel la dhaho culusa la soo dhigay hadaan nuugayna wallahi oo billahi oo tolo waa ku matagay tiina sidii baa ku daayay shiishadii balwad aan leeyahay horeyna uma yeelan haddana xasha wujud ima qorshaysna man leeyahay ifcaalamiinka inta saarnaana walaana balwad u yeelan dadka yaqaana waa yaqaanin dad badan oo aaminsan jira laakiin ma ka hadlo oo wixii tahay baa ku guba marka waxa ku leeyahay warniyo aan qaad inaan gada iska dhaafay niyo ma cuno inaan gada iska dhaafay ma cuno adaa geeda iyo waxa lagu soo heesay aniga xataa ma cuno marka inaad qof ku tilmaato inuu drug dealer yahay oo uu qaad macnaa qaadku wuxuu la mid yahay draagyada kale oo wadanka Yurub ka mid yahay mamnuuc bay ka tahay in laga ganacsadaa waa mamnuuc hadda arintaas war iska hubi baan ku leeyahay hana ku soo celin hadda laakiin cadeynteeda hayso cadeynteeda soo dhig 10 jeer oo dambe ka soo hadal laakiin hadda waxaan ku leeyahay hadda cadeyn hayn oo aadan hubin maandho ku soo noqon oo ku soo celin baan leeyahay taas aan ku leeyahay arinta cashuurta waxa kamid ah hadaladaadii lawyer baan haystaa lawyer baa u tagayo qolada finance amtiga iyo aniga noo dhaxeeya niyo waa sax lawyer waa la qabsadaa adiga finance amtiga way inay dhaxayn karaa laakiin lawyer waxa la qabsadaa oo adiga finance amtiga way inay dhaxaynaya marka wax istaba mariso
looyarku waa qof kuu doodaya oo ku difaacaya laakiin marka qof toos ah ku socda tahay wada toos ku socda oo wixii xaq loogu lahaa bixinaya aad tahay lawyer ma baahnid aniguna lawyer finance amtiga iyo aniga noo dhaxaya ma jiro laakiin waxa noo dhaxaya waa ku tilmaamaya waana ku saxayaa nin la yiraahdo Ishtoya Brata ama dadka Mareykanka tax consultant baa dhaha la taliyaha dhinaca sharciga cashuurta ninkaas noo dhaxaya bishii 7 euro iga qaata wixii soo galay baan u geeyaa iyo wixii iga baxay cadeyntooda waa kala jiraa finance amtigu u diraa ka bacdi bil walba saasa u diraa 3 bilood oo kastana cashuur baan bixiyaa 3 bilood oo kasta cashuur qararan baan anigu shubaa sanadku markuu dhamaadana xisaabta la xiraa haddii xisaabta la xiro ama ana daac lagu yeeshaa oo dib baan ka diraa ama maxaa ku yiraahdaa ana wax ii soo noqdaan oo hadda sanadkii wali 2020 cashuurteedii lama xirin laakiin 19 iyo 18 waa la xiray 19 oo kale anoo bixinayay quarter kasta haddana 5000 iyo 300 ahayd ha 5300 la soo raacay warqada oo lagu noqdo gaverba amtiga lagu noqdo warqadaasi cashuur baa xitaa leedahay sanadkii waxay ku xiran tahay annaga habba inta income soo gala hadda waxa ii taala oo bisha 7 aan bixinayaa waxa weeye 2019 warqada ruqsadan ku shaqeynayay cashuurteedii waa 2700 euro 712 kala laga rabaa inaan bixiyo waan shubayaa warqada aan ku shaqeysto oo gaverbahana waxa samaystay 2018 bishii 9aad baan samaystay 2018 bishii 9aad ilaa ay haddana iyadaan ku shaqeystaa warqada maxaan ku raahday cadeynaysay inaan qofiskii u shaqeysta aan ahay haddii marka aanu ninka waxba hadda hadalkiisa uga jawaabayne nin lawyer haysta hadda aragto waa nin wax lagu tabay waa lawyer difaacayo u doodaye haddii waxaan rabaa inaan inii sheego haddii aad codsataan oo faa'iido ah u aragtaan inaan inii sharaxo qaabka la isu diiwaan geliyo qaabka cashuurta loo bixiyo qaabka cashuur celiska loo dalbado maxaa ku yiraahdayay kharashaadka ku baxa xafiisyada la maro hadda idinku u baahan tihiin oo faa'iido moodaan commentiga ku soo qoraysaan berri ama saadame baan full iyadoo halkaas soo dhigaya warqada ruqsadda xilligan qaatay cashuurta si aan u bixiyo bil walba sida xisaabta loo xiro 3 bilood kasta quarter kasta saan cashuurta u shubo sanadku markuu dhamaado tax return-kayga ama cashuur celiskayga ama in wax lagu soo dalacdo oo daalac la ii soo raaco ama in aniga wax la ii soo celiyo waxa oo dhan berri ama saadame waa soo dhigaya hadda in ku codsataan ninka isaga tiis ka hadlimeeno meesha uu ka leeyahay lawyer baan haystaa bulwaaka horta eega waxaan ku iri warneeyo aniga waxaan leeyahay lawyer inoo dhaxeeya aniga iyo dawladda qolada la yiraahdo finance amti oo canshuuraha qaabilsan waxaan maqli jiray in dhibaato igu filan faraqa ku haystaa lawyer nin qabsaday hadda aragto waa nin doonaya in dawladda looladooda oo laga difaaco oo bad ku jira way lawyer bad qof ku jira qabsada laakiin finance amtiga iyo adiga hay'adda cashuuraha iyo adiga cidda inay dhaxaynaysa waxa weeye Ishtoya Brata ama tax consultant macna la taliye dhinaca cashuuraha ah ninkaas inay dhaxaya marka walaalkeen inuu bad ku jiro afkiisu ku qirtayo taas cadeynaysa cashuuruna hal warqo meel soo dhigo iyo warqada tana ahayd iyo address maxaa ku raad ninkana ay qaabilsanayo ma aha cashuuru waa documenti badan weey aniga haddaan dhaho warqadaha cashuurahan halka soo dhigaya ilaa waxa waaye dhowr boqol page bay gaaraan ma aha hal warqad iyo email la diray waxas ma wallahi dhowr boqol oo warqadood ilaa maalintan bilaabay ilaa maanta haddaan dhaho soo dhigaya wallahi waa dhowr boqol oo warqadood waay hadda qaanada ay u jiraan hadda codsataan waa idin soo dhigaya waan idin sharaxaya waa ninkii shiina culayha oo leh ninka ruqsad baan siinay ha iska soo hadlo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.